السلام عليكم dhamaantiin daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadli doono xisaabaadka ku jira theory-ga ama casharada theory-ga lagu qaato qaybaha xisaabta ah. Cashirkan waxaan ku qaadan doonaa saddex qaacido ama saddex formulo oo maadada physics-ka ah ama xisaabta khuseeya, taasi oo khuseeya barashada furshaynka ama barashada wadida baabuurta qaybta theory-ga ah. Waxaan rajaynayaa intiina iskuulada hore ugu soo qaadatay inaan si fudud iskula fahmi doono, intiina kalena waxaan isku dayayaa inaan si fudud oo macquul ah oo lagu fahmi karo u soo bandhigo. Ku soo dhawaada dhamaantiin. inta aanan cashirka u guda galin waxaan jeclaan lahaa inaynu isla fahanno erayo aynu isticmaali doono inta cashirku uu socdo. Ereyadaasi oo luqadda Jarmalka ah, Soomaali ahaan marka lagu turjumana ay noqonayso sharaxaad dheer, laakiin ay ka fududahay inaan Jarmal ku sheego, laakiin macnahooga aynu hal mar dul mari doono. Koobaad macnaheedu waxa weeye anhalteweg waa masaafada u dhaxaysa marka aad dhibaatada aragto ama mar alla marka aad aragto gaari in gaa horeeyo istaagay ama mataqaanaa shilka ka dhacay ama qof si degdeg ah ku soo hormaray. Masaafada aragtida ilaa iyo halka aad break ku qabato gaariga ku istaago inta u dhaxaysa ayaa la yiraahdaa anhalteweg. Midda labaadna waa reactionsweg, waa masaafada falcelinta, waa halka aad ka aragtay dhibta ama waxa ka horeeya ee laga rabo inaad ka istaagto ilaa iyo marka aad break qabato ee lugtaada break ku qabato. Masaafada u dhaxaysa ee uu gaarigu soconayo ayaa la yiraahdaa reactionsweg, waa masaafada falcelinta. Ta saddexaadna waa bremsweg, waa masaafada u dhaxaysa marka aad lugta ku qabato break ilaa intuu gaarigu ka istaagayo. falcelintii waan ka soo gudubnay oo waad aragtay dhibtii laga rabay inaad ka istaagto. break masaafada aad ku qabanayso marka aad lugta la hesho ilaa intuu gaarigu ka istaagayo ayaa la yiraahdaa bremsweg. sidaynu hore u soo sheegnay, anhalteweg-na wuxuu noqonayaa isku darka labada masaafo. halkana waxaad ka akhrisan kartaan sharaxaadii ama macnihii anhalteweg oo af Jarmal ah. intiina Jarmalka taqaana iyo inta mataqaanaa bilowga ah halka waad ka akhrisan kartaan, inkastoo aanay ahayn mataqaanaa cashirkan aan ugu talagelin inaan luqadda ku barano oo ay tahay furshaynka kaliya. wax macnaanay nooma sameynayso haddii aynu dib u akhrino, laakiin muhiimaddu waa sidii aynu soo sheegnay macnaha guud. haddiise ay jiraan dad u baahan inay luqadda iska dhisaan ama mataqaanaa B1-ska iyo wixii ka sarreeya sii bartaan, waxay kala socon karaan YouTube channelka korka ka muuqda ama linkiga channelka ayaan hoosta idinku soo qori doonaa qaybta commentiga ugu horeeya. kana waa macnaha oo af Jarmal ah ama sharaxaadda oo af Jarmal ah reactionsweg oo ah masaafada falcelinta. bremsweg-na wuxuu noqonayaa masaafada break qabashada ama marka aad break qabato ilaa iyo intuu gaarigu ka istaagayo inta u dhaxaysa ayaa la yiraahdaa bremsweg. haddii aynu ku horeyno reactionsweg ama masaafada falcelinta, waxaa lagu helaa reactionsweg waxaad mataqaanaa ku xisaabin kartaa geschwindigkeit-ka oo km/h ah loo qaybiyay 10 lagu dhuftay 3. waxay noqonaysaa masaafada aad ku socoto ama xawaaraha aad ku socoto ee gaarigu ku socdo oo loo qaybiyay 10 oo lagu dhuftay 3. tusaale ahaan Beispiel, tusaalahaas wuxuu sheegayaa inaad 100 km ku socoto. 100 km markaa waxay noqonaysaa formuladu waxay ahayd xawaaraha aad ku socoto oo loo qaybiyay 10 oo lagu dhuftay 3. markaa waxay noqonaysaa 100 loo qaybiyay 10, eberkii eberka isla baxaya, 3na ku dhufo 10 waa 30. ama si toos aad ugu dhufan kartaa 100 lagu dhuftay 3 waa 300 loo qaybiyay 10, waxay noqonaysaa markaa 30. macnuhuna wuxuu noqonayaa reactionsweg-gaagu waa 30 mitir. marka aad aragtay ilaa intaad break ka qabanayso 30 mitir baad carartay ama uu gaarigu socday. sababta xisaabta noocan loo sameeyayna waa in la iska ilaaliyo ama laga taxadiro inaad shil gasho ama aad qof jiidho ama gaari jiidho ama gaariga ka horeeya jiidho ama meelba aad jiidho ama wax halis ah oo aad si kadis u aragtay aad jiidho. si aanad iskugu halayn kaliya breega gaariga inuu wax walba ku qaban karo ama aad
si fudud uga istaagi karto. sidaas darteed waxaa lagu tusinayaa ama lagu cadeynayaa in waqtiga aad breega qabatay ilaa iyo waqtiga uu gaadhigu istaagayo ay masaafo dhan aad socon karto oo uu gaadhigu sii socon karo. Bremsvegana waxaa lagu helaa ama aad ku xisaabin kartaa xawaaraha aad ku socoto oo loo qaybiyey 10 lagu dhuftay xawaaraha aad ku socoto oo loo qaybiyey 10. waa 2 jeer oo isku mid ah ayaa la isku dhufanayaa. km/h aad ku socotay tusaalaha hore aan kusoo qaadanay 100 km oo loo qaybiyey 10 oo lagu dhuftay 100 km oo loo qaybiyey 10, marka waxay noqonaysaa 100 mitir. labada 100 isku dhufo 100 lagu dhuftay 100 una qaybi 10 lagu dhuftay 10. ama waxaad samayn kartaa 1 0 u saar halka 0 kale 1 0 u saar, waxay noqonaysaa 10 lagu dhuftay 10 waa 100. marka taas macnaheeduna waxay tahay markii aad breega lugta ku qabatay eed u diyaar galowday inaad istaajiso ilaa intuu gaadhigu ka istaagay 100 mitir ayuu socdaa ay ka dhigan tahay. Anhalteveguna waxaa noqonayaa sida aynu hore usoo sheegnay isku darka reactionsvega iyo bremsvega. sidii aynu labadii tusaale hore kusoo qaadanay 100 km/h ayaad ku socotay, markaa waxaynu gaar usoo xisaabinaynaa reactionsvegi oo 30 mitir ahaa, waxaynanu u geynaynaa bremsvegi oo isaguna 100 ahaa. tusaalaha waxaynu mataqaanaa kilomitirka hal mid uga dhignay si ay inoogu fududaato fahanku. markaa kilomitirku ka duwanaan karaa 50 buu noqon karaa, 130 buu noqon karaa, uu ka badan karaa, uu kana yaraan karaa. markaa reactionsvega aad gaar usoo xisaabinaysaa, waxaad u geynaysaa bremsvega, isku darkooga ayaa waxay noqonaysaa anhalteveg waa 130 mitir. macnaheeduna waxay tahay 130 mitir ayuu gaadhigu socday markii aad aragtay inay dhibaata kaa horeyso ama qof hor joogo ama mataqaanay shil dhacay ama gaadhigii kaa horeeyay uu degdeg ku istaagay ilaa iyo markii uu gaadhigu istaagay masaafada u dhaxaysa waxay noqonaysaa 130 mitir. sawirkan waa sawir muujinaya wixii aynu hadda kasoo hadlanay ama xisaabihii hadda aynu soo xisaabinay, wuxuuna muujinayaa markii ugu horeysay aad aragtay inay dhibaato kaa horeyso gafaar xagga ay ku qoran tahay calaamada 3 geeska ah ee midabka guduudka ama casaanka ah waa wixii aad rabtay inaad ka istaagto. halka aad ku aragtay mataqaanaa waa meesha ay labada indhood ay dusha ka saaran yihiin gaadhiga bartaa markaad maraysay ayaad aragtay, markaa waxaad isku dayday inaad istaagto. halkaad ka aragtay ilaa meeshaad ka istaagaysay waxay noqonaysaa bremsveg. reactionsvegna wuxuu noqonayaa aragtidii ilaa markii aad breega qabanaysay ee aad lugta la helaysay waa reactionsveg. bremsveguna waa muddada u dhaxaysa breegii aad qabatay eed lugta saartay ilaa intuu gaadhigu ka istaagay uu ka gaadhay calaamada 5 farood ah stop ah. anhalteveguna wuxuu noqonayaa markii aad aragtay ama reactionsveg markii ugu horeysay aad aragtay inay dhibaato kaa horeyso ilaa inta calaamadan 5 farood ee casaanka ah laga gaadhayay isku darkooga ayuu noqonayaa anhalteveg. waa isku darka reactionsvega iyo bremsvega. sawirkana waa sawir la mid ah kii hadda aynu soo aragnay, waxaan ku muujinaynaa halkan inta mitir ee uu yahay reactionsvegu, bremsvegu inta mitir uu yahay iyo anhaltevegu inta uu yahay. reactionsvegu waa 30 mitir, waa aragtidii ilaa intaad lugta breega saaraysay. bremsveguna waa markaad lugta saartay breega ilaa intuu gaadhigu ka istaagayay waana 100 mitir. anhalteveguna wuxuu noqonayaa isku darka labadoodaas markii aad aragtay ilaa intuu gaadhigu ka istaagay ee uu ka gaadhay calaamadaas stopta. waxaan rajaynayaa inaynu intaas la fahnay. intaana waxay noogu eg cashirkeennii koobnaa ee aynu kaga hadlaynay qaybo ka mid ah teoriga qaybtiisa xisaabta ah. ciddii su-aal ka qabta ama qofkii aan si fiican u fahmin ama wax su-aalo kale oo dheeraada qaba, fadlan nagula wadaag commentiga hoose. waxaan isku dayi doonaa inaan dhammaantiinba idiin soo jawaabo. haddii aad wax ka fahantay ama cashirkani uu ku anfacay, fadlan la wadaag walaalahaaga Soomaaliyeed si ay uga faa'iidaystaan.